باسبور كوني مالتيسكا horta dawladdan maaltimo bixisa Soomaalida hadda maalto joogta tiradooda qiyaas ahaan عودو wanaagsan afar 500 baa la qaataa kiniisada hataa waa loo shaftay tigjar marka qaar waa dhismaha kow iyo tagaasida laba iyo malablaha la eriyay malabluhu waa qashinka ha caawilka yidaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu horta marka hore waa salaamantihiin halkan garabkayga waxa taagan magaca nuuridiin maxamed liibaan nuuridiinow hadda halkan aynu joogno dadka u sheeg meeshan maxay tahay halkan aynu joognaa waa malta ninkii aniga garanayo wad garanaysa halkan aynu joognaa waa malta siba wax weeyaan xaafadda reer maarsa xagga Soomaalidu ku badantay intee lagu waddanka joogto horta waxaan joogaa 12 sano joogaa waddankan 12 sano sanadka soo gashay mana wadaag kartaa horta ha 16 soo galay 2016 ha waayahay 12 sano ma shaqaynaysaa inta waan shaqaynaya ha shaqadaad ka shaqayso maxay tahay waa mechanic tower crane iyo maraakibta dunya iyo dekada maxay yihiin bal adigoo hadda sharaxdo shaqada exact waxay tahay waxaan ka shaqeeyaa taawarada guryaha lagu dhiso iyo maraakibtan taawarada saliid qoda waxaas ka shaqeeyaa Soomaaliinta liba degan magaalada Soomaalidu xoogay imkoo yaraadeen laakiin koo xoogay imka sidoo hore ma Soomaalidu waa laga badan Hindiya wax laga badan Bangladesh iyo Indiyatan laga badan waayahay Soomaalida shaqooyinka ugu badan ee ka shaqeyso Malta bal labada iyo saddex shaqo ama afarba noota shaqada ka shaqeysa ma jirto way oo tagu ugu kali waxa Afrikaan la yiraahdo way laakiin Soomaalidu badankoodu tagaasi iyo in gawaadhida xashka raacda iyo in dhala ka shaqeysa waa inta horta xashiishka malabkay u bixiyaa waa malablayaasha arrimaha Mareykanka IONT waagii hore waxa jirtay IONT Soomaalidu badda ka soo gasha IONT qaadi jirtay oo Mareykanka geen jirtay arrintii IONT horta xagee ku dambeysay Donald Trump la wajinayta wala jooji Donald Trump IONT wala xaray oo intuu shaqeysa laakiin IONT wala xaray wixii interviewda maray in baa la qaadaa in kasta dadka dhamaadeen laakiin wixii afartan bar haystay way taagayin waa dadkii hore markaas 2017 state isaga ma jirta dadkii interviewda maray xilliga doonta ahaato ma 16 ahaato wixii interview laba interview maray waa la qaaday laakiin wixii hal interview maray lama qaadin afartan barna way istaageen baasaboor kooni maltiiska horta dawladdan maaltimo bixisa ma bixiso 12 sano adigu joogta hadda marka 12 sano baasaboorka haystaa muxuu yahay waxa waan haystaa mid baan haystaa imisa sana 3 sano haystaa halkiisan ka yimid wigi hore xagga familiyada waxa laga soo qaadaa familiga tuuriga iyo waxa laga soo qaadaya Masar laakiin wixii Afrika laga soo qaado Masar iyo waxa laga soo qaado Khubris inta waa laga soo qaadaya iyo Greega laakiin wixii Afrika laga soo qaadi maayo Soomaalida hadda maalto joogta tiradooda qiyaas ahaan wallahi imka 300 ma dhama 300 qof ha ma dhama ayda ka hor xagga aydu wanaagsan afar 500 baa la qaataa qofka aan shaqayn 500 buu qaataa guriguna laga bixinayo marka meelo kaamo la dajiyaa dadka jira mise kaamo jiraan laakiin dadku kaamba ma galaan imka xaqi faadarada iyo anigu waxaan ogaa arrimii faadarada iyo faadarkuna waa gooniyo waa ku caawinaya faadarkuna waa gooni kiniisada hataa waa loo shaftay tigjar marka qaar subaxii baa quraacda laga qaadan jiray guriga hore hadda imka laakiin dadku way ilbaxeen tagaasi dhismaha wax walba laga shaqeeyaa horta meesha ugu wanaagsan waa Malta waayahay shaqooyinka ugu badan ee Soomaalida loo arko 70% bay ka shaqeysaa maanta Malta maxay tahay waa dhismaha kow iyo tagaasida laba iyo malablaha la eriyay malabluhu waa qashinka ha caawilka yidaan way ya tahri xabar ku kale muqaalka dadka cid kasta daawanaysa Soomaaliya oo dhan Soomaaliya oo beerita way laakiin majority u badan adigu ma ka shaqeysaa malab buligii ka shaqeyn nin buro laba oo galaba waxay sheegteen inaad waddanka ka timo wadinta labaad ka maqlay halkiisa bil baan ku maqnaa waayahay ninka laftigiisa gaadhidu ma yiraahdo nin awliya qiyaas ahaan adigoo kale imika qofka markii uu bishii u shaqeeyo muxuu mushaarahan u qaataa waxaan madaxweynaha Soomaaliland baa isku shaarnay mushaarkiisu aad u fiican yahay laakiin celcelisaan Soomaalida kale shaqooyinka ugu fiican tagaasuna waa ladantay laakiin dhismuuna uu ladan yahay laakiin waa shaqo horta Yurub way dhantaa mushaarkan baa badan kulay tagaasida waxa tirey Soomaali badan baa wada xog ma ka haysa mushaarkooda qiyaasii wiigii 400 soo dhacaan tagaasida 400 markaa bal idinku ku dhufsada 5 isbuuc iyo xisaabta ayagana deynayna waayahay nuuridiin ugu dambeyntii Soomaalida hadeer maalta soo gashay iyo kuwii hore u joog jiray ee hore u soo galay farq intee lag badan u dhaxeeyo kuwii imka soo galay baa ka faa'iido badan kuwii hore u joog yaaci jireen
dadka bil hore way yaaci jireen mato xufay ku dhaafi jireen laakiin ninkii ku dhagaa uu ka faa'iidaa mata guriyuu ka dhistaa jawaan buu ka iibsadaa intaasoo nagu yaano dadkii asku waqti haydaan bal 3 iyo 4 dad caan ah oo la yaqaano halkii ma nagu sheegi kartaa ama ka salaami kartaa waa aad baan u salaamayaa waxaan salaamay maxaa Cabdilaahi Kuuriya waan saaxiib ahayn Khaliil waxaan salaamayaa kale codaan deefro Mareykanka jooga naasir maxamed yaani sunan aan soo joognay dadkii aad baan u salaamayaa asxaabtaydii iyo nin kale oo la yiraahdo Bashiir iyo nin kale oo cali yiraahdo meesha ka ahaa aad baan gabiga Mareykanka boodtay adiga maxaa ka reebay Mareykanka nasiibka naga reebay maxaad ugu jirtaa nasiibka nasiibka naga reebo nin walba bariis meesha ku qoran yahay aniga bariisiga ma taxalkaas ku qorna inaan taawarada fulo la kuwa Mareykanka laakiin waxa lacag ma dhaano marka ma joogo maxaad ugu jeedaa يعني حق العقد وحلال يحرس دعم مجد انت ويجي قاطبه انا قاطع حق قريها والله نيك استبا قريه وحاول صدح بقول افر بقول قريه مقسنده افر تا بقول استحا بقول marka ma halkii maqsin ba oo halkii maqsin qofka marka uu share gareenayo ee uu qof la degan yahay hal sariir $100 ma euro ku shaqada wadi euro way €100 waa halkii sariir حق دومي هو دنبيه سو غلاي دومي إنك هو كل أتكلم دوم بقول دنبيس تونكي دون تو دنبيس سو غش حد ما حسي يقول مسؤول سداي ما يمكن بدو بدو تشوفه شرعيا ما بيحن هذا ايوه دوك يمكن سو غلاي سبين باو قاطي يدان ماريك سويسرلاند كاسا قيبسدي oo qaatay qaatay loo qaybiyo halkan ka qaatay marka halkan ka qaatay qiyaastii doontii u dambeysay toonankii soo gashay dad inta lag baasaaran waxaas waa mix waa Arab iyo Afrikaan iyo Soomaali laba kala garan laakiin Soomaalidu si horma soo waxa la imika 22gii iyo 23gii iyo 24kiiba wax dooni maaltamay soo galay dadka Talyaaniga ka yimaada hadda buuq bay ku fureen dadka Talyaaniga ka yimaada dadkaas aan ugu daran oo aan ma garanaysaa magaalada haystaba waa iyaga xaafadaha ee Soomaalidu ugu badan tahay Malta waa xaafadii waa Malta ugu badan meeshan ma daan joogo meeshan joogo badan waayahay Nuurdin aad u mahadsantahay interviewgaagi xaq siyaasad ma ka yar daran yar ku dar waayahay xisbiga taageerta horta anigu wadani baan taageeraa musabbiixi anigu waxaan ku musabbiixi naftiin male musabbiixi waxa weeye waa ninkii keliya aan caqligiisu shaqayn anigu laakiin wadani baan taageeraa halkan xafiis xisbiyada siyaasaddu xafiis mugley ma laha aye wadani baa ku lahaa laakiin waa la xiray yaa ka gudoomiyaha waxa ka gudoomiyaha loo jiray burco Francisco tii halkan xafiis ku lahaa inuu lacagta la wareejin qaranka waa maqlisan de hatta wax weeyaan Malta wadani ila reer Malta wadani war wanahay hayay hore war waxaan anagu wadani ba bal waayahay bal fariino reeb musabbiixi iyo xisbiga kulmiyada musabbiixi waxaan leeyahay marna lagu cidi marna lagu khaldamay mar labaad lagu khaldamay ma doorashada qabo dasan leeyahay anu adeerkii intaasaan kaga baxay adeerkay intaasaan kaga baxaya adigu Nuurdin ma reeb barbaarta misri anu reeb biyaha gisabana laakiin hagisana badna xafidida ka digna fanka ka digna ya egas hargeysa ana garay fanku marka dadka aan fahmayn xaafad baa la dhahaa xaafadda weynka xaafadda la baxday xaafadda barakeysan imkana bakhaarada noqotay kowde imkana bakhaarada isku bedeshay waxaan joogay wiig horaan joogay saddexdii waxaan joogay 12kii bishan joogay marka waxaan leeyahay reer Hargeysa aad baan u salaamaya arrinkeena waa wadani aad u mahadsan Nuurdin waa soo dhow bal magacaaga dadka u sheeg Abdi hada qodha wala wacis Malta goorma soo gashay 10 years ago 2014 you can speak English yes ma shaqaysa hadda ما شاء الله shaqada ka shaqaysa maxay fix still fix maxaa lagu wadaa Soomaali ama jijiyal ka warramay bira la xiro biraal maxay marka bro waa biro waxa weeye koongureed iyo guriga la shubayo bira lagu xiro adigu deegaan ahaan reerkiisa tamsira bro gobolkii raga burco xafidee Kenya dadkaas ku xilliga haydeen bal 3 iyo 4 halkan magacooda iyo meelaha kala joogan dadka ma la wadaagi kartaa badan